gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee Shabeellaha Hoose iyo ciidanka xoogga dalka. Wariyayna Jamaal Juwah ayaa ka soo warramay Shabeellaha Hoose. kala duwan ee bulshada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si weyn u soo dhaweeyay magacaawista gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Said Axmed Sidi. sidoo kale dadka soo dhaweeyay waxaa kamid ah qaar kamid ah ciidamada xoogga dalka Ibrahim Lejo oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo xildhibaan hore Nuurti Samow. intaasi kadib xildhibaan Nuurti Samow iyo Ibrahim Lejo oo warbaahinta la hadlay iyagoo hambaliyo u diray gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose. Talaada ah taariikhdan ay tahay 31 bishii 3aad waxaan ku suganahay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye anagoo ku hadlayno codka dhalinyarta iyo ciidanka gobolka Shabeellaha Hoose anagoo ku hadlayo codkooda waxaa meeshaan hambaliyo aan ugu direynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose loo soo magacaabay Cabdifataax Sidi. waxaan ku leeyahay walaalkay hambaliyo ku soo dhawow gobolkaagii deegaankaagii dadkaagii dhalinyartaadii ku jecel. waxaan garbahayga taagan waa ciidankii dawladda ee federaalka Soomaaliya oo maanta la xisaabi karin farxadoodii dareenkoodii muujinayo ku soo bandhigeen. adna waxaa laga rabaa ciidankaaga inaad biri ka maalin ah ogaatid garabkooda ahaatid. waxaan baaq beeshan ugu sii diraa dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne waad mahadsan tahay maadaama aad naga dulqaaday 8 sano culeysna kor saarnay aqabadna kor saarnay hadii aan reer gobolka Shabeellaha Hoose Cabdicasiis Xasan lafta gareen gobolkan wuu cusuriyay. waxaan ka codsanaynaa dalkeena iyo deegaankeena dadku wax u qabanayo dhalinyaro aqoon-yahan aan leenahay siyaasiyiintii gobolkan ka soo jeeday indhahay isku haystaan ayagana waxaan rabnaa meesha Cabdicasiis oo maray inay maraan oo siyaasiyiin cusub iyo wax qabad cusub iyo deegaan cusub intaba aan isku wada dhaqaaqno. ciidankan waxay maanta u taagan yihiin oo shuxuurtooda banaanka ay u soo dhigeen Cabdifataax gudoomiyaha gobolka cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdifataax mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay hambaliyo soo dhawow gobolkaagii degmadaadii deegaankaaga ku soo dhawow. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta shuxuurtooda banaanka ku soo dhigay waana ku mahadcelineynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jamaal Juwah telefishinka caalamiga S24 gobolka Shabeellaha Hoose.